الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، waxaynu ugu soo foolle bishii barakaysaneed ee Ramadaan fursad qaali ah iyo muusim iyo waqti aad qaali u ah oo qiimo badan inoogu fadhiya ayaa inagu soo aadan inagu soo foodle. sidaad uga faa'iideysan lahayd ood fursadda uga faa'iideysan lahaydna waxay u baahan tahay diyaar garow. su-aashu waxay tahay bishu intayna soo gelin maxaa nala gudboon oo noogu kaalmayn kara inaan bisha ka faa'iideysano iyo khayraadka ilaahay dhex dhigay tabaaraka wa tacaala. jawaabteedu waxa weeye arrimo dhowr ah intayna bishu soo gelin inaynu ku dadaalo bisha ka hor. ta koobaadi waxa weeye in aan ducaysano oon ilaahay weydiisano inuu bisha nabad iyo caafimaad inagu gaadhsiiyo. maxaa yeelay salafku ridwaanullaahi calayhim sida ibnu munkadir laga warinayo, ramadaan ka hor waxay ilaahay weydiisan jireen allow ramadaanna gaadhsii. dabcan haddaad ramadaan ilaahay ku gaadhsiiyana gudihiisa waxaad weydiisanaysaa ilaahay inuu ku waafajiyo khayrka dhex yaalla. ramadaan hadduu dhammaadana alle waxay weydiisan jireen wixii khayray sameeyeen inuu ilaahay ka aqbalo. marka ilaahow ramadaan nabad iyo caafimaad nagu gaadhsii, kadibna nawaafaji khayrka dhex yaalla inta ugu badan inaan ka qaadano. qodobka labaadi waxa weeye ee habboon inaad ilaahay ku shukrino tabaaraka wa tacaala oon u mahad celinno, laanna inaad mar kale ramadaan soo gaadho waa nicmo cusub oo ilaahay tabaaraka wa tacaala kuugu nicmeeyey iyo abaal uu kuu galay u wahay. mar kastood nicmo heshana waajibku waa inaad ka shukrido si allah kuugu siyaadiyo kuuguna xifdiyo. allah siduu qur-aanka inoogu sheegay lain shakartum la asiidannakum, nicamka haddaad ka shukridaan waa idin kordhinaya. marka inaan shukrido alxamdu lilaahi tiraha oo imisaa badan imisa walaalaheen ah oo ramadaankii hore inala soomay ayaan mar kale fursad u helin kan inay nala soomaan oo cibaadaystaan. haddii marka ilaahay adiga ku soo gaadhsiiyey inaad ilaahay u mahad celiso, qalbigana uga mahad celiso, carabkana uga mahad celiso, xubnahaaguna ay ku mashquulaan sidii fursadda aada uga faa'iidaysan lahayd. marka shukriga iyo xamdiga waxaa ka mid a bishu markay dhalato iyo bilaha kaleba nabigeenna dhaqankiisu wuxuu ahaa sal alla alayh wasalam bisha markuu arko inuu duceeyo. ummaddana saasuu baray sal alla alayh wasalam, allahuma ahillahu calayna bilyumni waaliimaan waasalaamati waalislaam waltawfiiqi lima tuxibu watardaa. ilaahu bisha noogu dhali barako iyo iimaan ama nabadgelyo iimaan iyo islaamnimo, iyo inaad nawaafajiso wixii aada raalli ka tahay ee bisha dhex yaalla, khayrka dhex yaalla eed raalli ka tahay inaad nawaafajiso eed raalli ku noqonayso. waxaa ka mid a waxyaalaha laga maarmaanka bisha ka hor inaynu ku dadaallo bishii oo inoo soo socota ilaahayna aan weydiisanay inuuna gaadhsiiyo inay kuu dhalatood gaadhaayay inaad ku faraxdo oo aada bishaaraysato. maxaa yeelay nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh saxaabadiisa waa u bishaarayn jiray, qad jaa-akum ramadaan baa idin yimid, waa bil baraka iyo khayr badan oo wanaag badan dhexdeeda yaallo. ilaahay soonkeeda ayuu idinku waajibiyey, iridaha jannada ayaa la furaa, ilidaha naartana waa la xidhaa, shayaadiintana waa la katiinadeeyaa. habeen waxaa ku jira ka khayr badan 1000 bilood, ciddii khayrkeeda laga qadiyey baa la qadiyey. nebigu marka waa bishaarayn jiray sal alla alay wasalam. waxay bishaaro u tahay dadka khayrka jecel ee wanaagga jecel ee daneeya ahlul iimaanka ah. laakiin dadka iimaankoodu daciifka yahay ee shahawaadka caadaystay culays bay ramadaan ku tahay.
11 bilood markay cunaan oo cabaan oo shahawaadka gutaan halka bil inay soo gashay culays bay ka dareemayaan waxayna tilmaamaysaa in iimaankaagu aad u hooseeyo tacbaan yahay waxaa ka mid ah arrimaha loo baahan yahay bisha ka hor inaynu ku dadaallo in aan ilaahay u toobad keenno wixii dembi een gallayna aan ka qoomamoonno kuwa aan lugta kula jirneen hadda samaynaynana aan joojinno allahna tabaaraka wa tacaala dembi dhaaf weydiisannoon xumaanta ka noqonno iyadoo liibaantaada ay ku xidhan tahay sida ilaahay qur-aanka ku sheegay watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuun xilli walba loo baahay inaad toobad keento dembiyadoo dhanna laga soo laabto ayaa haddana bisha ramadaan mudnaan khaasay sii leedahay waa bishii towbadda haddii aada qalbigaaga aada towbad dhab alla timaado waxaa dhacaya in qalbigaagu daxasha iyo wasakhda iyo qashinka fuulay ee dembigu saaray ee sababta u ahaa qalbigaagu inuu ka bogsoodo qalbigu markuu dunuubtii iyo wasakhdii ay saartay uu ka bogsoodo saafi noqdana wuxuu xoog iyo awood u helaa daacada ilaahay tabaaraka wa tacaala lianna waxa daacada iyo khayrka inaga hortaagan ama inugu diraya ama aan ugu adkaysan la'nahay waa quluubteennoo wasakhowday waaye waxa soonka adu kari laadahay salaadaha jamaacada u kari laadahay sadaqada u baxsan laadahay diinta faafinteedii khayrka uga qayb qaadan laadahay wax kala ma ahe qalbigaagii baa si wax ka yihiin qalbiga marka sifee si soonku kuugu fududaado salaatuleylku kuugu fududaado qur-aanka akhriskiisa u macaansato sadaqada aada u bixiso adigoon dhibsaninoo culays dareemin ictikaafku kuugu fududaado si cibaadaadku kuugu fududaadaan qalbigaaga sifee oo towbadda ku sifee waxaa ka mid ah arrimaha muhimka ah ee bisha ka hor loo baahan yahay inaynu u diyaargarowgeeda aynu la nimaadno in aada la timaado go-aan rasmi ah ilaahayna aada run u sheegto qalbigaaga wuxuu ilaahay ka arkuu kugula dhaqmaa sida nabigeenna ka sugan sala allahu calayhi waaalihi wasalam allah ma fiiriyo sawiradiinna jidharhkiinna iyo jidhkiinnana ma fiiriyo laakiin wuxuu fiiriyaa qalbigiinna iyo waxa ku jira allah qalbigaaga hadduu ka arko daacadnimo iyo in aada go-aan rasmiya go-aan ay kaa tahay dhab ah inaad ilaahay raali geliso bisha iyo muusimka iyo xilli kasta ilaahay wuxuu kuugu kaalmaynayaa inaad gaadho wixii aada rabtay ujeeddadaada inaad gaadho ilaahay kuugu kaalmay laakiin run u sheeg faidaa cazama alamru falow sadaquu llaha lakaana khayran lahum shu-uunta markaad gelayso culculus ilaahay inaad run u sheegto waayo ninkii saxaabiga ahaa nabigeenna sala allahu calayhi waaalihi wasalam ardadiisa ka mid ahaa goortii dagaalka la gelayay dagaalkii inta la galay haniime iyo xoolo lasoo helay xoolihii qeybtii kaga soo hagaagtay qaada la yidhi oo diiday oo yidhi nebi maxamedow arrinkii aan kugula ballamay oon beecada kugula galay kan ma ahayn oo maxaad beecada iyo ballanta igula gashay in halkaasi lay wareemo oo halkaa uu igaga dhaco cadowga hubkiisa iyo leebkiisu kadibna ilaahay dartii aan shahaado u qaato taasay ballanteennu ahayd ee xoolo ma ahayn nebigu muxuu ku yidhi sal alla alayh wasalam in tasduq illaaha yasduqka haddaad ilaahay run u sheegto qalbigaaga arrintaasi daacad ka tahay adigana ilaahay baa kuu rumaynaya oo kuu run sheegaya marka waa meesha lagu kala tegaya waay qalbigaaga marka go-aan dhab oo rabbi aada isku ogtihiin la imow in aada sida ugu badan uga faa'iidaysato bishaa barakaysan iyo khayraadka dhex yaal waxaa ka mid a arrimaha muhimka ah ee inoogu kaalmaynayaa bisha iyo diyaargarowgeeda inay si aan uga faa'iidaysanno sida ugu fiican waxaa ka mid a inaad qorshayso
waad nadaamiso oo takhtiidiso qaabkaad uga faa'iidaysan lahayd laana ibni aadamka waxyaalaha uu doonayo inuu gaadho ama adduunyo ha noqoto ama maqaasid aakhira ha noqotee wasaa'isha ugu kaalmaysa waxaa ka mid ah inuu leeyahay qorshihii uu ku gaadhi lahaa hawsha iyada wailaa haddaadan qorsho dejinin arrinkaagu wuxuu ku soo urursanayaa amaani waa iska jeclahay waanu jeclahay waan rabaa rabitaan keliyana wax kuma socdaan takhtiit almusbaq nadaami qorshee jadwal deji qaabkaad uga faa'iidaysan lahayd bishaa barakaysa nabigeenna hadyigiisii buu ahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh inuu arrimaha marka uu galayo ka hor la qorsheeyo waxyiga rabbi soo dejiyeyna in badan iyo meelo badan waa laga qaadanaya bini aadamku inuu qorsho leeyahay awsan fawdo isaga soconin sidaas daraaddeed nadaami miaal haddaan soo qaadan waxaad rabtaa inaad qur-aanka kariimka bishaa barakaysan 10 goor dhammayso oo cibaadaadka ugu waaweyn ka mid ah haddii uun aad sidaa intaad iska jeclaato ramadaan kuu soo galo waqtigiisu ku maro waxaa dhici karaysa adoon hal shay ka fulinin ama wax yar kaaga fuleen bisha inay kugu dhammaato laakiin haddaad qorshe iyo jadwal dejiso ujeeddadaad lahayd si fudud baad ku gaadhi kartaa waxaad rabtaa imise beri baa kusoo hagaagaysa inaad halkii jusba dhammayso xilliyada aad kala akhrinayso waa xilliyadee xilli walba inteed rabtaa inaad akhrido markaad wixii jadwalayso ayaa waxaad gaadhi kartaa ujeeddadii aad rabtay iyo 10kii juz iyo 15kii iyo waqtigaad rabtay gaadhi kartaa kadaalika waxaa la mid ah sadaqada bisha ramadaan inaad wax sadaqaysataad rabtaa qorshana umaadan dejinin xoolahaagii wax ka mida maadan soo saarinoo meel ugumaadan talagelinin ganacsigii bay ku kala jiraan xageed ka keeni waayo wixii aad sadaqaysan lahayd leanna maba aadan diyaarinin sidaas daraaddeed qorshe iyo nidaam inaad ku gasho oo markaasi aad ku gaadho maqsadkii iyo ujeeddadii fiicneedeed lahayd qorshaha waxaa ka mid ah in aad soo yarayso mashaaqisha adduunka 11 bilood baan garaacaynay oon ganacsi ku jirnay oon xamaalanaynay oon ordaynay oo adduunyo garaacaynay 11 bilood waxaad keeni weyday ramadaan keeni maysid saas daraaddeed u faaruq cibaadada ilaahay haddaadan keri karayninna ugu yaraan soo yaree waqtigii mashaaqisha adduunyada soo yaree oo waa hal bilow waa waqti koobane u soo bado dhanka cibaadada iyo taacada salawaadkii qiyaamuleylkii qur-aanka akhriskiisii sadaqaadkii ictikaafkii cumradii cibaadaadkii u soo bado oo qorsho samee inaad mashaaqisha iyo howlaha intooda badan ramadaanka dunyawiga inaad iska wareejiso si aad halkan uga qaniimaysatood uga faa'iidaysato bisha barakaysan waxaa ka mid ah arrimaha loo baahan yahay ramadaan ka hor in aynu diyaarsanno inuu u diyaargarowno si aan ugu diyaargarowno bisha iyo ka faa'iidaysigeeda in aynu baranno oo aqoon iyo fiqhi u yeelanno bisha ramadaan iyo ka faa'iidaysigeeda axkaamta ku saabsan gaar ahaan soonka iyo axkaamta ku saabsan lianna cilmigu barashadiisu labuu u kala baxaa midna waa cid kastuu waajib ku yahay midina dadka qaarkood baa laga rabaa ummadda qaar ka mida waxaa ka mida cilmiga cid kasta waajib ku ah cilmiga gala waajibaadka iyo faraa'idda diinta gala saad u tukan lahayd oo salaadaadu u saxmi lahayd cilmiga ku saabsan cid kastuu waajib ku yahay caqiidadu inay kuu saxantood shirkiga ka badbaado sunnadu inay kuu saxantood bidcada ka badbaado cilmiga ku saabsani waajib waaye soonka cilmiga ku saabsani waajib waaye cid kastaa laga rabaa mu'minkuna kadaalika markay aad gaadho inaad zaka bixiso inaad barato cilmiga ku saabsan markaad gaadho inaad ganacsi gasho beec iyo shiro gasho cilmiga ku saabsan beeca iyo shiraha waa inaad taqaano si aad uga badbaado inaad xaaraan cunto ama carruurtaadii eelkaaga xunsiso ama aad kasbatoba wahaakadaa cilmiga waajibka ah waqtigiisa inuusan ku dhaafin waayo si aad ilaahay ugu caabudo adigoo cilmi leh cilmi iyo garasho aad ugu caabudo calaa basiira
كدبنا عبادة ذي عمل كاغ الله أقبله لأن عمل أن علمي سنين إلهي أقبل مايو عمل أن وافق صنين هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله أقبل مايو إن لقى أقبل الدلال كاغا وحيكو حرنتهي إنو علمي سنيهي وإلا وحاكو قبصنا يساه ارجع فصلي فإنك لم تصلي وحبا ماذا تكنيني كع صلاة كن قصوتك نبي قايري صلوات ربي وسلامه عليه مركع علمي وكتدالا أخري ضالعو هداد سمين كرتو لقيسو ويدي كتدال أقون ويالو صون كاغا محابورية محو باهية محو كوغنتما سيبش اللوغة فايديستا أعماشو سيبي أكل خير بدنتهاي سي أين فرصدو كاغلو منو عدة أقوف فرصد إيا جانس في عان أظن نقطو كفايديست أرمها دمان تودي وحوي والرمضان كهر بشو هدي دلتو أو أي دلتو إلهي كو غارسيو نبينا صلى الله عليه وسلم هديكي سوحو أها بيل دلتي مركو أركو بشا أي أو أركو ودعي سنجري صلوات ربي وسلامه عليه وحودي جري إلهو بشا نوغو دلي إيمان يا أمان يا إسلام نمو iyo inaad nawaafajiyo wixii khayr ku jira waa markay dhalatood aragto ilaahay ku gaarsiyo tabaaraka wa taala san soo sheegay arimahaasi marka waxa walaalayaal waa diyaar garowga bisha ramadaan diyaar garowga bisha ramadaan sida aad ugu diyaar garowdaan mawaasimta ganacsiga xilliyada ganacsigu dhaqdhaqaaqo oo ganacsigu uu soconayo oo bilaha suuq dhaqdhaqaaqa leeyahay markay soo socdaan oo soo dhow yihiin waa loo diyaar garoobaa alaabtii baa meel walba laga keenaa adduunka laga soo ururiyaa nin walba wuxuu isku dayaa labada bilood saddexda bilood ee suuqu furan yahay inuu ribaxa iyo faa'iidada ugu badan uu ka qaato alaabtiisana socodsiiyo waa tijaara adduunyo oo u diyaar garoobayso tanina waa tijaaro aakharo oo u diyaar garow u baahan badeecada China ka keenayso tan aakharana waxay u baahan tahay badeecadeedii inaad diyaariso labada badeeco un baa kala duwan laakiin saad adduunyadaada mudnaanta u siinayso si ka fiican aakharadaada mudnaan u sii ilaahay tabaaraka wa taala bisha khayr iyo nabadgeliye iyo amaan allah inuu gaarsiiyo haddii ilaahay ina gaarsiiyana hayna waafajiyo acmaasha ugu badan ee ugu mudan in ilaahay ina waafajiyo haddii acmaasha aan sameynana ilaahay haynaga aqbalo tabaaraka wa taala hayna ugu dambi dhaafo sallu wa sallimu ala khatamil anbiya'i wal mursalin allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم بلغنا رمضان ووفقنا فيه لما تحب وترضى وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك